sida aad daawateen qaybtii hore ee waraysigan ayaa madaxweyne cabdilaahi yuusuf axmed waxa uu kaga hadlay wadciga maanta ay ku sugan tahay dalka Soomaaliya iyo dhibaatada dalka Soomaaliya ay u geysanayaan kooxaha xagjirka waa ururka al-shabaab oo lagu xiriiriyo al-qaacida waxaana madaxweynuhu uu ka digay inay taasi ka sii dari doonto haddii maanta aan wax laga qabanin waxa kaloo si faahfaahsan uu uga hadlay muddadii xilka uu hayay iyo dhibaatooyinkii ka hor yimid iyo murankii soo kala dhexgalay isaga iyo ra'iisul wasaarayaashiisa madaxweynaha qaybtan labaad ee waraysigana waxaanu ku bilaabaynaa oo ay noo joogtay qaybtii hore markii xabsiga laga soo daayay ee uu xidhay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre iyadoo xabsiga laga soo daayay isaga iyo rag kale oo uu ku jiray dabaqiyaaqadii sanadkii 1975 mar kale ku soo dhawow Universal TV markii xabsiga laga soo daayay dabadeed maxaa xigay bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdisalaam anagoo 6 sanadood xirnay oo isu maray xabsi Baraawe iyo Mandheeradii waqooyiga iyo xabsiga dhexe Muqdisho ayaa bishii Oktoobar 20-keedii 1975 habeenkii ra'iisul wasaare hore Maxamed Ibrahim Cigaal iyo wasiiradii la xirnaa la soo daayay ayaan la soo daayay nin walbana gurigiisii ayaa la geeyay أنا قلت لي ساعة يوحوي هاي مركين اللي سود هاي بركي ميد نايتي هبين كاس نقول بقول جيسي ولا جي أو ساحضي هبين كي كوحي جي وبرية وخلاء أي هاي كوبي يلا تنكي أكتوبر ومالنتي كعانكي سوماليا oo dhashay laguna xus jiray ayaa saddexda aroornimo nin walba gurigiisa looga soo yar laga soo keenay waxa nala yiri waxa idin doonaya gudoomiyihii golaha sare markaa madaxweyne wali ma hayne waanu nin walba gaari baa loo geeyay gaari uu soo raacay waanu isnimi markaanu u nimi oo isnabdaadinay dee 6 sanana ismaanana ayaa Maxamed Siyaad Barre wuxuu yiri dambiilayaal baad ahaydeen niman xun baad ahaydeen sidaad yeesheen waxa istaahisheen ciqaab inta ka badan waa noo hanjabi mise waa nabaqsanaya garanay annagiina waxaan isla soo taagnay كمان حرنين يا مركا كوجو هليني يريتان كالغا يري مدحتوي وأنا إيه عيدي ونلسود داي حبس يرجع أو مقدشة نلسود داي ده تو أو أنو وصلنا إيو سيدات يرد كهرنين حبس يجمع من ديرنا وحنا كهرنين صدق سنة ضد براونا أفر بلاد بنا كهرنا وحلو يعني نقدر دحيلي إن أنقرنا إن وحنا كهرنين أي حق هاي أو أنو دنوب قلي أنا أقول كم مرة وحنا نري أنا ودنوب مقلينه يطالب أنا لا شكت هذا قال ملك هارجي لا شكت هاي شهات هذه عندي بدي شوقنا ما حنقول على اللي سووا له حق بتكهرنين مرن دير بنا رحنا saddexdii saac ee ka dhimanaa habeenimada murankaas oo hartana laga dhamaaday waa barigii iyo wuxuu nagu yiri dhageysta niman waxaa tihiin khaldan oo iimaan la wayaashay aan waagii ku ogaa markii la xirayay ayaa tihiin weli ma idan hanuunsamin ha yeeshee labadiina بعيدا ما إذا درسنا ما إلا إذا آمن مياه نول با وكالته مركاتري يعني مدو بيمية
aniga wuxuu yidhi meeshii fiyaad la oran jiray iyo gaadiidka iyo qalabka dayactirka oo talyaaniga aanu caawa kala wareegin ayaad waxaad ka noqonaysaa maraya guud waatay aydiidna wuxuu ku yidhi waxaad maraya ka noqonaysaa wakaaladii dawooyinka oo asbiima la oran jiray labadooda xafiisna way iska soo horjeedaan midna fiyaadba wuxuu kaga yaal dhanka ka soo horjeeday warshadii fiyaad meesha aniga la geeyana waxay ahayd inta fiyaad baarkeedii in yar la dhaafo waxay ahayd meel shirkadda markii talyaanigu haystay ay deganaayeen laakiin aan ka fogeyn waxaan u qaadanay mar haddii labadaa meelood isu muuqdana la kala geeyey dee kolley waa nala ilaalinayaa in halkaa laydinkaga warhaynayo isku group ina idin ilaalinaya kaana wuu arkaa kaana wuu arkaa xafiiskiisa wixii gelaya waxa kasoo baxaya waxa dabagal dheer baan inala ku sameeya markaa kadib waxaan anigu fiyaad joogay aydiinna asbiima joogay 20 bilood oo madax ka ahaa runtii anigu waa hagaajiyey wakaaladii caynina siqasoo kale u yeelay laba ninoo saaxiibana waanu ahayn waayo kadeed ofsas baan soo wada maray ciidamadan ka shaqaynay haddana staff college oo raashiyaaho 3 sano iyo baraan soo maray marka aqoon aad u dheer baa isu lahayd haye marka dee macruufna waa ahayn saaxiib baan ahayn aabihii xataa waa garanayay caydid aniga abahayn ma noolayn waxaa marka uu na yiri waxay yeelaysaan waxaad leedihiin aqoon military iyo khibrad dagaal waayo anigu waxaan ku jiray dagaalkii anoo battalion commander aan waxaan galay 64 dagaalkii inta diyuuradaha habashida iyo weerareen oo xuduudda la isku soo weeraray anigu ninkii daafacay baan ahaa bakool iyo gado ninkii daafacay ayaan ahaa عيدين مركا مجرين عيدا يونت فرنتا جرا مجرين تلسكو كشقيني وحنا يري لوضع ميلود بعد كده تريسان لما تنبلود مركا نشوفني دقالكي تضباطن يتضبطي ورحمري من قستوية محمد سياد بري أيوة أنت نوير يقولون خبرات بالليدين توبر بالليدين أقون بدن عيدن بالليدين أريو وحيري ميشاد أفري لحدن كي كذا قالنتي دولو شهاديس شهو فرونت بعد عيدن كحوق الضلكة iyo wixii boliis iyaga lagu daro iyo shabhadda Soomaali abow anu garan Soomaali abow markaa wala yaabanay maxay ahayd baan leeyahay Soomaali abow baad madax u tahay ciidanka markii la isku dardaro 30 kun oo nin buu ahaa saas waqti ilay nagaylad ka gudbaysaa halkaas waa mandhawaagii Talyaaniga qabsaday Itoobiya buu la socday ونو شيء وحو يري انت قال طلياني او مدحنا فرس نو فوري بانو انغنا waxaan lugeen Addis-Ababa waxaan leeyahay Muqdisho ila Addis-Ababa markii wadada uu yiqi wana dhul kala fog Itoobiya markii aad dool u dhaaftana waxaad gelaysaa buuro iyo wariyaal iyo dhul kayma ah oo dhir badan wadada dhinac uga bartana male markaad naga ila qabataan wad gudbaysaan meel awaasa la yiraahdo oo leeg leebaad sii maraysaan yaad sii maraysaa ciidankaagu Addis-Ababa koonfurka soo weeraraysaa Addis-Ababa koonfur kaga imanaysaa ومركا قرشها وي كجرتي بلوغيبا ان Addis-Ababa xitaa la gaaro adeer way ku jirtay anigu go'aan wax ku balahan qorshahan wax ku balahan hay'ad anigu fiyaad baan fadhiyay marka ciidan ka shaqeynay ciidanka harar iyo dir dhaway weeraraya
kaasina halkaasuu markuu daharaya diri dhaba qabsaduu soo gudbayaayo webiga hawaashuu ka soo gudbayaayo waxaa isugu imanaysaan meel isagu markaa magaceeda yaqiinay lawaagii uu maray oo magaalaha oo adigu iga raaliya haddaan halkaa kaa yara dhex galo sida dad fara badan ay tilmaamaan ama taariikhyahanadu ay sheegaan adigu dabcan xog hoosaad haysaa waxaa dagaalka loo gelayay in la xoreeyo wixii lagu tilmaamayay Soomaali galbeed ama gobolka Soomaalida Ethiopia marka qorshuhu mu ahayn baad leedahay in halka lagu koobnaaday ilaa Addis Ababa absolutely ma ahayn xeelana la yiri Addis Ababa koonfurka soo weerar ciidanka Harar iyo Dirdhawa ka soo degayaana waxay soo imaanaysaan wadada ka timaada ee koonfur oo markii dambe mooyaale iyo Kenya iyo aada iyo wadada Harar iyo Dirdhawa ka timaado oo waxay soo imaanayaan magaalo aan weynayn la yiraahdo Mocho oo Addis Ababa 70 kilometer ka sokaysa deeto wada jirahan baa la rabay inaanu Addis Ababa qaban anigu waxaan ku iri masuura galba ciidankeena iyo awoodeena iyo marka la eego haddaan waxaga noqotaan haabi oo waxaan iri dhulku seeya ninka taliyaha ay dhulka iyo jawiga iyo dadka dhulka degan iyo waxaas oo dhan uu ku tushaa ilaa waa dhibaatooyin ka hor iman kara markuu dagaalka galay wuxuu yiri dhulka iska dhaafay saayay waayahay haddii ciidankii Harar iyo Dirdhawa soo degi waayay see la yeelay markaas laga tashanaya yaanu waxaan arki jiray dagaal hadii la gelayo in horta political objective ama ula jeedo ugu dagaalamayo in state kuleeyahay haddii yiri Soomaali galbeed baa la qabanayaa marka ula jeedadu waa taa hayeeshee strategically inay suuragal tahay anigu waa ila cusay midda kale dhul weyn oo runtii geographically ku adag ciidankii soo galay bayleeda Ethiopia waxay leedahay man power badan ama shacab badan hadii dhulkii wadankii hadda la dirirayso wadan waa la tixgeliyaa wadankaasi suu yahay dadkiisu inuu yar yahay inuu badan yahay inuu ilaa man powerka hadhowto ciidamada laga dhigaye iyo dhulku inuu baaxad weyn yahay oo balaaran yahay in kale wali labada markii laga badan yahay hadii strategically inay ku qalcata laga yaabo waliba haddaadan dagaalka yaani bilowga aadan bisha ugu horeysiyo bisha ku xigtay aadan adkaan oo aadan meeshii lagu cayimay inaad qabatid qabsan dagaalku dheeraanaya markuu dheeraadana ciidankoodu dhammaan mayo intaa wax kumayal 40 konton iyo maqan 60 milyan bay ahaayeen markaa Ethiopia inaguna 10 milyan oo qof kulligan marka la isku daro kulli jamhuuriyadda Soomaaliya oo saasan filaya hadhow waa lagu biyo Kenya dii dagaalku dheeraado waxa kaloo yaani suuragal ahayd dawlado kale oo Ethiopia u hilinaya inay dagaalka soo galaan speed baa marka loo baahnaa Cabdisalaam speed in guula lagu gaaro oo objective-kiina loo diray laakiin bilowgii taas waa dhacday Soomaa markii dagaalka la galay sidaynu la wada soconno Soomaaliya ciidanka ay markay haysatay waa ku xoog weynaa kii Ethiopia waayo Soomaaliya equipment-igi haysatay iyo tababarka lahayd aad bay u xoog weynay saraakiil wada tababaran oo staff college soo wada baxay baa ciidamada hogaaminayay furuntayda ana madax ka ahaa furuntayda baari qaar kala hogaaminayay Harar iyo Dirdhawa areeya marka Harar iyo Dirdhawa ku dhawaayeen wasiirkii gaashaandhig oo taliyay ciidanka ah oo Cali Samantar ah oo aanu Iraaqeed oo sar course meeting baa runtii ay hoos imanayeen hogaaminayay waxa marka loo baahnaa in markii qorshaha la sameeyay
lagu talagalo factorieskaas oo dhan haddana waxaan u qaatay in lagu talagalay ha yeeshee markii dambe oo ciidankii harar iyo diridhaba kasoo digi lahaa isoo socdo anigu naga ila waan gaadhay laakiin awoodan intaa ka badan sii socon karo haddii aan ciidanka la xoojin ma haysan ciidanku xoogaa artilleriyaa la socday inta kale infantry buu ahaa taangis iyo a b cs iyo dayuurada iyo magaciisi iyo maaragtay dagaalka kula jiro oo taageerayaa ma jirin maalin qura dayuurad la inuu soo dirin aniga ciidankii hore iyo dirdhe markuu socon waayey anigu waxaan hindisay war haddii ciidankani wuxuu madaxa loogu garaacayay difaacuusan mari karin khasaaro badan baana ku gaarayay waxaan codsaday markaa inaan muqdisho tago muqdisho markaan tagana isaga unba iqaabilayay maxamed siyaad barraa iqaabilayay ilaa cali sanatar wuxuu jiraa kore ya waqooyigu jiraay waxaan sii samaystay qorshe strategical oo macquula iyo qorshe markaad samaynayso aada ciidan tahayna waxaad ku talagelaysaa factories badan waxaasoo dhan anigu oo runtii tixgeliyey ayaan qorshihii sameeyey qorshuhuna dee marna waa qoraal oo waa ribood iyo fikradaada aada dhiibanayso marna maabkaa la dulgeynaya oo warbixinaad bixinayso ha waxay iban diyaarsaday waad iman kartaa baa la yiri waa tegay galab baan soo galay magaalada dayarad baa doolow la igu soo diray yara oo boliisku lahaa laakiin nageele ilaa doolow gaari baan kusoo maray madaxweynihii oo la fadhiya nin sarkaale yaan soo galay oo qu-im soo fariisu yiri soo fariiso ma timi haa soo fariiso ninka markaa la fadhiyay wuxuu ahaa maxamed nuur galaal oo furintada diri dhaba markii hore madax ka ahay oo laga soo bedelay maxamed nuur galaalna raash yaana wax ku badawaa baran jir waase iga dhalin yaraa iyo gaabna ayaa garanayay ma garanaysaa anigu markaas waxaan idhi anigu waxaan u imi guddoomiye kuu soo jeediyaa haa buu yidhi miis baa meesha yiri wuxuu hoos fadhiyaa xafiiskii uu ku shaqayn jiray seexana jiray oo airboortkii muqdisho ku yeeli geed ku hor yaal oo weyn baa miis yari u yaalo waxaa ugu rakiban jalaskii bahalkii may qaylinayay markii uu soo geliyay geedkaasu garaaca wuxuu yiri waad yeeli kartaa bilow ma sheegin waxaan wato markii hore waxay baan explanation galay horta reportkii baan dusha u dulmaray oo akhriyay qaybihiisii muhiimka ah deetana maabkii baan intaan kala bixiyey oo miiska saaray baan iyadana ka hadlay wuxuuna way isleeyihiin reportka iyo maabku wayna isku yimaadaan waxaan ku iri guddoomiye amarkii aadna siisay anigu waa garanaya aniguna naga ilaan jooga ciidankii harar iyo diri dhamana soo socon waayo de garanayo difaac adag miyaa ka hor yimid ma wax kalaa dhacay difaac ay marin kara baa madaxa loogu garaacayaa ciidankiina khasaaro badan baa gaaray taasina waxay keenaysaa ciidankii awoodiisiina inay yaraato muddaduna dheeraato muddo dheerna haddaynu dagaalkan ku jiro aakhirka waa jabayna waxaan kaa codsanayaa qorshihii strategicalka ah ee aada dagaalka ciidamada ugu dirtay in wax laga bedelaa maxaa la yeelaa waxaan ku iri ciidamadan meesha aada madaxa ugu garaacaysaan waxaan kaa codsanaya ka daaya waayo mar haddayan guulo dhalinayno hore u soconayno magaalooyinkii loo xilsaaray inay qabtaan ee ahaa harar iyo dirirrabe haddaanay gaarayn oo muddo dheer ay ku qaadanayso inta markii aad weerar gelisaanba lasoo jebinayo khasaaro badana dhacayo ciidanku halkaas waana runtii ku itaal yaraynayaa
وخسارة بدن بقارية وقتنا واديرانيا وحنا موقت عيدك وهالكا إنوسن مري كرين هذا هدان لبدلين قرشة حاجة إلهي بوير وحن كنت لين يا بني ماش عن عيدك ما راح لو قرعي هدو مري واي عيدك الدفاع اللي جري عيدن بدن وكم إذا أو عرس وطا هل سووريج كونفور هل سووريج وأنا قال لي كذا annagu markaa hore wuu socon karaa markii taangis iyo ABC iyo dayuurada iyo magaciis iyo waxaas ay taageerayaan anigu Addis Ababa koonfurteeda waa tegi karay runtii laakiin Nageele iyo Addis Ababa waa 600 kilomitir oo lake iyo webi iyo buuro iyo mirana markaan sidaa iray wuxuu yiri ka socod ka gudub weeye yani uu sheegay marka waxa kugu muuqatay inaanu talada qaadan anigu taladaasaan soo jeediyay wuxuu yiri ka gudub haddaan ka gudbo khasaara iman doontee yaa mas'uulka noqonaya adiga waxba kaalay gelina ka socday markaan dhameeyay anigu explanation kii wuxuu yiri كسر وحاجة يليسها سيدا يلي مينه فرنسا دا كتيم كونغو أنا وحيا عضافتي عيدن كصوماليا جوش اللي قربي بلوجي إنه سنجاري وعيدن كي سعون وعي نصعن ميو عيدن كي أنا لا شو هنا عيدن حب وهو إلى Addis Ababa يعني marka beegsan karayay ma waa tahay sida aad u sheegaysay waa laabtayda xirtay waa laabtay soo xiriiran dagaal raaco dowladda kaga digayo meeshayda taliskayga baan ku noqday waxaan garanayay muddadu inay dhaaraanaysa dagaalka waxaan garanayay raashka oo aad u ayidayay way raashka waa kii Maxamed Siyaad Barre eriyay oo ayidayay دينا إثيوبيا. قرادي من قسط ما ذهب وها إثيوبيا قرصتين عقرب كسميسي. وحنا قرنا إنه الدلال كلا أو شو عندما شاكتو سيدا كوبا كله. إنه عيدن كودي دجال سوق لينكرو. وحنا قرنا بلانين كي يومارك تيجو قامين تعيد ما ذي مقيسي إنه صيني. سيدي وارد عظيم. في الدفاع اللي هو جري ما كرجي مسألة كرو أيها هرتا وحايمي كوبانكي سيران يمن ومركا حراه وهنتي وذاكيو أهاي خاشية تنرالة يدي يوم رسالة دي يوم عيسى إذا من ليبيا لا ها كوده ليبيا مارغنو لكن يمن وهو راشيا يوم مدحضودي تمدوا دجالك إثيوبيا وهو قامين سنة وان هو ونن جنرال بتروف اللي هذا بقى هو كان مدحك عايو ميل كوهي خلينا مدحنا بدن وتانجس يمقعيس يجيني عن هلك كاير دحقلو تاريخ داس وضع ضيسي مركي دنبنا سيدا شيء سيبه ودعضي سيدا تاريخي هنضر لمقريان Soomaaliya markii hore guulo waxay gaadhay aad u wanaagsan markii dambe waa la soo jabiyay 87kii markii laga soo baxayay Ethiopia ciidanka Soomaalida dib u soo guranayay sidaba ku garowsaday madaxweyne Maxamed Siyaad Barre taladaas oo ku qaatay waxaan filayaa anigu ma weydiin laakiin waa malayn kara in dawladda saaxiibaha runta u sheegay ويراهدين وماشي أنت أسود دولة حوق هبا صوق الشيء إثيوبيا إذا ما يجاه جامعية أود إذا ما إثيوبيا كودر على ميان إذا ما ذي أوكرانيا أو سعودنا إسكعمد من كرم إسحاق ممكن صوماليا أنت على قبسان أيضا كأقل به الشيء هو إنساتي وهو عنك هو جاري مركا ريالتي كلاش يودون كوشة دلوقتي صاحبك هو شيء وي أرجع ردت عيد النوال شبيه وقوي وواعي لما دي واتشبه
إلا خسارة بدن بقاريه أنا سجالكي مش سجالكي مارس مية سجالكي بروح على إيري دي بقول شحيل دجال سماه دي بصباح عيدن كقارق بريلة كدجال ما ماشي كصرف عيدن كنت سكال وحنا كسر قليسا حدود الدولة وحنا دياليسا دفاع كجلالك وحد كصوماليا دفاع كجشا شن معلومات يشن هبين بنصوص على أنا أقول الله يدين ويقعد يدو في الماء يسنو وقاعد عرس يمرجيهم كشغلين هاي يعني دي وقرش الصلاة يسنا الله يسكما يعيه وحاوي أدي ودق الله ما يابها عيدا كاغا دي بلا ربحها قال الدفاع أنتو كسي تشيرو أنتو كلا دي بلا صحرا شن معلومات يشن هبين كذب بان ciidankii labadii guuto ugu dambeeyay ciidanka baa la socday 15 baan webiga ka yimaada xagga Kenya iyo Ethiopia xuduudooda daawo baarma la yiraahdo oo juba kaga daray doolow meeshiisa kaas bridge aan dhignay oo bridge mobile aan dhignay oo ciidamadu lahaayeen markaan ka soo talaabay وعن بنك الصومالي يعني إذا كان لو سيور مريض قاعد أمر بنسية الدفاع بيكوسي جرا إذا كي إثيوبيا أو سنك يواجه بعض أصوغلي حبط والمسكو بيلون ذي هالكاس عن أسكوه الفريسان لو يوم ما يقود بكرين إلا الدفاع هذاك بنك تخي رنتي لقي بيني نقبض نايا لكن نقبض حقرانين قلب أحيانا نقبض فيعني ولي halkii anagoo joognaa baa waxa ii yimi niman saraakiila oo taliska guud uu soo diray nimanka amar baa la soo siiyay waatay annaka warqabay ilaa markii laga soo baxayay jijiga ciidan badan oo askar baa la yiri rag la dalacsiya keen oo 80 iyo dheeraad ninba inta la isu keenay oo iyadoo loo qabo nin walba waxa la soo xul rag wanaagsan فأنت الله يسوق أنا يبا أنت هريرها الله قدري باب كل ولا لا أنت سواء أنت بدل أد لوجه الله هدي أد إن يكوي راها كنو محل لوجه شدي تلابدا وحل لوجه شيء إذا ما ضعني هدي يسوون نقدان وذلك يكون نقدان يعني غلا بيسكت دي كران وشدي سماين كران شعبك ciidanka dagaal baa loo diray hadana waa laga soo saaray sidii dagaalka maragtay loo qorsheeyay sidii loo galay magaciisa baan qalad ahay daan ilaahay ka yaabayo hadana maxamed siyaad barre kaliya ku eedayn maye intii markaa joogtay ee saraakiilayda aqoonta lahayd hadii way ku jireen waayo qorshaha iyaga u geenayay waxaa loola jeeday shacabka iyo ciidanka soo noqday oo dagaalka soo noqday إلى عن قلاب صمين الوع بقرين قليل مركي هدنا هرجيس عيدن كي قارك وكون قضي لحسر كال أو مع أطبران ودجالك كوشرتي أي هرجيس اللي وتوكتي يعني هو كل عبسي قليل خير والله يعني عيدن والله يعني إنه بتشي يعني هو كلا حقوقاتان يعني هو كلا حقوقاتان هو عشي مركب وفتي أنا لا يسود رجائي waxyaabihii la isoo jeediyay waxa way markay ciidankii oo dul mareen oo eegeen oo maartay boqodkan bixiyeen ku yahay ogaadeen waxay yiraahdeen waxa laga doonayaa si shacabka iyo ciidanku wax ugu qaataan oo aynu waxaan loo baahnay u sameyn adiguna rag la waayo keen cadaan baa adiga marka lagu sheegay ilaah baa igu نكساي يقول أنا واثق المقعيسة هنا شيء مرة هو شوها هو سركال كهذا وقامني النوك هو كان هو اللي شوكه بريسي ميليتري هو يسوي شيء قارر وهو يبغى كشيء ما قرأني سام ترى ما لقول شيء مرة كادي قال هالليا لقول لي أنت صح ولا رجل الله يا أنا هو أنت صح ولا ما قرأني رك صار عرّي رك دم بقلاي رك مقعيسي
كان باليري أو لا يسي وحلو قط أنا وحصل عرنا معي حبان سمي أنا معي إذن كيسو إذن دقال ما درين باكل معلاني هذا يراي دي أحداث دقال ودرتين إذن كيسو إذن كو أنا الدفاعي كتير أو أنت اللي يسكت اللي مروي سو إذن كو يما أورن كسر نقول حدود دني أو دبقروشة سمايو دفاع كقل حدود دن ها دي مركي ورنا أمريكا بحسين بعيد كقول يدقال بانكو مركي دنبنا أمرت بحسين بكو صباح مركا أنا أقول الله يمهي وحلا دمعي اللي هو ماركتي ريحو ودي دي أنا والضمير كاس ما يارن كاو مركا سن أوغادي شيغانا إن رجع سيدتين يدارات كالو لاي هرجيسان إن لحسر كالو كل ولا أنا خين لو توكتي سيد كواس أو خلبة للدنيا مركا وده صاير أو عيدهم زندن بلاهين وأنا أنت اليوم ها أنت دجالك اللوجري وأنا صوماليا ووطنيا هاي يعني عيدا صوماليات ومدحوا أيضا مقيسيو وحلقات وهلا كان هلا الله أنا وحيل أنا قلت له حقران لما نقول واضح حد يرقب أنا أقول مرة ما كان ولي نتكلم haddii marxaladda lafteeda su'aal yar oo kala ka weydiiyo ciidanku ciidan soo jaway buu ahaa hadii uu garasho xal dagaal lagu tilmaamo laakiin xaqiiqada iyo taariikhyahanada adduunyada salay ciidan soo jaway buu ahaa mar haddii ciidankii xoog weynaayo waqooyi ka dagaalamay hadduu soo jaway marka ciidanka wadatay soo jaway waa taangiyadii iyo dayuuradihii iyo magaciisa ku baanka taas waa la isla qirsay laakiin su'aasha doonaya ku weydiiyo waxa weeye niyada ciidanku sidoo ahaa marka hadda ka soo qaatay ciidanka adu madaxda ciidanku wuxuu ka ciilqabay inta dagaal la galiyay oo la yiri Soomaali waa la xoreynaya hadana in dagaalkii laga soo saaray iyagu de reasonka laga soo saaray waxa ay may garanay moqta waa askari way niyad jabka intii la doono niyad jabka taariikhdu dabcan waa taariikh aad iyo aad u dheer tafaasiil badan aad ka haysid marka kama wada gayoonayno niyad jabka ciidanka Soomaalida la soo darsay wuxuu keenay afgambigii ay isku dayeen saraakiil adoodigu kamid ahayd taasi sida u dhacday Cabdi Salaam hadda lillahi doonaysi anqaraabka marka aan wax xabsiga ka soo baxay waa socday laakiin wuxuu ahaa رئيس وزراء السشو سراكيل اللي يراها ودي سراكيشا محمود شيخ عثمان إفرو بيكون شيء من يقول عليهين ومن كتشوق على بادية اللي يراها بيكون شيء خرجي لله يقولن بيكون شيء وحا يري مركا هذا تشارلز انقلاب لو سمي يابان هيسنا الأول أديكو الدجال كوشيرو ضد كي سوماليات بالحرين يالريه وحمد سمين كريم أديكو الله كل جرها اللي مدرنا مدحويني وحتى لي قابض ويسعودي مركب حبسك اللي جالسوا دايما ويا قضية شنو تطواتك تطفر بدنا الصوماليين وحيس كل رأسين وقت قاسين وها وقت الصومالية سيد اللواركي ضدك الشعب كواركي بديدود أي نبوة أكسن هاي ستي هرمرة يكسعودي سيد اللواركي سراكيشاس maxay saluugsanayeen ogaanta waxay saluugsanayeen saraakiil dhalinyaro mutacalimiin ahaayeen waxay saluugsanayeen horto ma jeclaysan dagaal hadhow ugu jabay in la geliyo marka labaad shuucinimada iyo hanti wadaag iyo Lenin iyo Marx iyo magaciisa may doonay saraakiil wadaniyiin oo Soomaaliya oo badaha isku jirin bay ahaayeen waxaan maaragtay rabba dalka lagu qasbay taasay maaragtay ka dhigiyeen waa tahay anigu markaan soo baxay fiyaadii wasarakiisha madaxdu ahaan jiray iga daayaray way contact gareeyeen waana ila hadleen war waxaan ku yiri anigu haddaan soo baxay warba ma hayeen waxa dad haysaan maaragtay wax information wax talaam magaciisa wadii sheegi kartaa laakiin in laga fiirsado sama fiicna teeri marka dagaalka la aadi doono dagaalka ciidanka loo dirayo anagu waxaan la urukaadsi
laakiin haddana in inqilaab la sameeyo niyadayda raalli baan ka ahaa ha yeeshee ciidamada kuma jirin oo anigu kama shaqayn karin xafiiskayga anoo fadhiya fiya oo markaan ciidamadii layga saaray oo shacaba oo ku jira kuwii xirnaan jiro iimaan laawaasha alweeri bay talay weydiin jireenna waan siin jiray wixii kale iga baahdaanna waa qaban jiray laakiin waxaan loo baahnayn oo aan meel mari karin oo fashalaya ha samaynina kulaha wax badan baan intay damceen waxay isku dayaan baan ka joojiyay waayo intaan dagaalkaba la aadin bay fashali lahaayeen oo runtii ninku waa eegayaa ma ogtahay mas-uulka oo madaxda ahaan jiray oo tababaran oo uu eegayaa maaragtay waxa la rabo in la sameeyo iyo xoogga meesha yaalo dadka uu rabo inaan qalaabo uu eegayaa ma ogtahay haddana iyadoo aan riisan jirin oo waxba jirin anqalaab de waa kii caynaansha iyo gabayre iyo cabdulqaadir bee lagu dilay oo kale ma garanaysaa iska dhaqaaq un adigoo aan xisaabtamin dee inqilaab laguma galo dagaalka markii la yidhi waa la aadaya qaar baa ii yimi saraakiishii oo cirra kamidii oo waxay yidhaahdeen iminka si aan dagaalka ciidanka loogu dirin oo ciidanka loogu soo baabi'in dagaalka iminka aan ka hor tagno nin waliba furuntada loo diro markuu tago inta dib u soo noqdo muqdishoan soo wada gallo oo aan inqilaabno waxaan ku yiri iyadoo la leeyahay dal iyo dad Soomaaliyeed baa la xoreynaya haddii yacni aad ka hor timaadaan oo aad iminka inqilaab isku daydaan dee haddii khaa'imiin waddanka jiraan khaa'imiin baa laydinka dhigay shacabka Soomaalida xataa raalli kama qadir shacabku wuxuu u heelan yahay in dadka la doonayo in la xoreeyo iyo dalka la doonayo in la xoreeyo rabaa shacabka feelingkiisa waa la tixgeliyaa markaad wax qabanaysid anaa ka joojiyay markaas wax la isku dayla waana fashali lahaa oo naala hadlo waayo ciidamadii ku tishanayeen kulligood habeenoo madoowa inta labiska laga bedelay oo qoryo yaryar la siiyey yaa la yiri gorilla laydinka dhigayaa ogaadin yaa la geliyay waxay galeen wardheer waxay galeen qabri dahar waxay galeen dhagax buur waxay galeen goday iyagoo markaa laga dhigay jabhadii Soomaali galbeed laga dhigay wanaga iminka waxa dagaalka waaga la ii diray anigoo dhar jabadeed qabay oo ciidanku dhamay qabay oo ma qaadan jirin maaragtay rankiskii iyo wixii iyo labiskii saraakiisha ciidamada ما نقدر لما أقولين شبهدين بانه وعير أنت صدق كون أونين وأنت شبهدي هو شبهد لكن مليتري ووجيه اللي ستلايت بشرو وهو بشرو وطيب رد صوت برتقال يبقى مطعم من فضلك تيم كا عيدا كي وصوت شوي سراكيشا مدة بكتها مية في كم بيجينا سمايا ayaa isku dayay sideen la socono sideedadkii sabab ku fashilmay ninkii la oran jiray Allahu naxariistay Colonel Maxamed Sheikh Ciro ba maartay saraakiishii ku hargeysa lagu leeyahay inta uu mandara laga dareemay baa la soo bedelay guutadii difaaca cirka oo sawaariikhda Sam 2 iyo Sam 3 iyo waxa dalka ku difaacisay una taliyo guuto waa saraakiishii markii hore ay sogaayeen oo dhalinyarada ahayd oo meesha ka helay waxa ay soo direen wafti qarsoon waxa ay inqilaabkii iminka wala sameeyay anu qorshe intuu sameeyay yaa waxa uu dhigay Ali Gaadi oo Xamar Aadi qorshe aadi البادية عرشت القسمان والعالكي كيروي وحن كويل دي انقلاب لصمين يوهو روا قرشو روا وهو روا مالنت انقلاب كالله بلاواي وهو روا فرصمو روا ويلو انتو سميان ودري وحن اري ووحا ياليسان لبية طبانكا ابري وبشان دقال كسو بحاني ديش كحكتين لبية طبانكا ابريل ومالنت ciidanka xoogga dalka la dhisay
ومالين تلا حصيو ومالين هذا دقدقاق سميسان لما ودي أنا أتبال دقيسان عيدي مالين تهوين لو هجاجة حقلاء إن حمر لقى سمي أنا ومن قرشين خنتي إن لو فشل أنا وانقرني وحن كويري ورعيدا كانقلاب قسمين هيا لأن كي تالرون حمر يسكت دينا إن لو سميسان وقتي مركو صاقرو نوديك أريد عيدن كيينا عيدن كل كونتاكت لها ويس أوجاي ciidan kaygana in yar aan difaac ku reebo maayo waa soo dhaqaajinaya baydhaban cagta soo marinaya afkooyin ka soo galay lix guutaan wataay oo military ah oo tiraahana imisa marka ya tiraahana imisa 10 kun oo nin way koobe ciidamadii gobolada dhexe waa Hiiraan Galgaduud mudug oo markaa isku mudug ah nawala soo dhaqaajinaya waxay iyana inay balcad ka soo galaan anna aan ka galo afgooye inta baydhabo cagta sii mariyo oo qabqabto saraakiisha halkaas aan qalaabka diidan inaan laayo kuma talagelin laakiin waan qaban lahaa waxay lahaa markaan labada dhinac ka soo galno annaga ka awood badnay ciidan waliba wuxuu watay ciidan xooga hub culus oo xooga buu watay laakiin taasi ma dhacayso waxaan hiri odagu ambada yurad buu ku baxsanaya ambada waa qabanayna laakiin in dad la iyo kuma nan talagelin annaga iyagii liikaysh baa baxay 9kii abril oo 3 xashar dhiman tahay oo annagu aan diyaar garow ku jiro bay anqalaabkii isku dayeen waxay is yiraahdeen yaa la idin kala hormarinay anqalaabkii isku dayeen dad ku guuleystaan qaar haddii kala day waa wax ku dhici jiray waxay ku galeen anqalaabka waxa weeye waa liikaysh kaas baxay ay ogaadeen in laga war helay laga warshahay wataan ha markay isku dayeen habeenkii baanu maba islaamin intaas qaban karaan roob badan bay qabsadeen saraakiil badan oo taliyayaalaha iyadoo aatan anqalaabka soo jeeday waa qabteen على سلام ترى وكبح صدي يقول كيسي ورانا واحد ضمعان إنه يقبطان وكبح صدي هذا ربك عرف ده تمرك يدم به ما عليه يدم به الغب يكهر إلا لقى حيقران لقى بدن لقى حب بدن لقى عيدا بدن يقوم يهيسني هرت ساسو كوفر شلي عن قرابكي مركو فرشلنا ما بقي أنا وياه إله بيجته إن لبلاوي قول ما تكون حاجات شوجا مقالة اللوق اللي يردان شوجا يقدر كتال لكن دفاعي وفرنت ظهره ودوره يبولها مركان مقالة انقلاب فرشلي وحاول يجوه الرئيسي وحاول محمد سياد برو إذا عندك هذا اليوم انقلاب بالإسكودي انقلاب هو فرشلي نيك وكاتو بيعاين مقيس له وإذا عندك هذا اليوم كور هذا تينو سميت كلا هاي وكي أنا وياي هاي وافهمي waxaan isku dayay marka ciidankii kulli inaan abaabulo oo marka maxay sameeyay oo marka u diyaar garoobo wax kasta oo dhici kara hadii nimankii wali ay meel haystaana inaan u gurmado hadii laga takhalusayna de marka wixii kale oo la yeelay lahaa inaan yeelo markiiba waxay ugu soo bilowday أمر اللي حمر صوغر ورتشبه الوجيرية ومع السياق بروي كهضي وعن غراب بافش ليله ورجع فرت الوفيقية رجع دليرها صاحبي هايهين وعين الشيخ وهذه أنا لقيها بين لينك صوغر وحال فهمي لينك إنهم كتشرو أنا وصام في لي كوجي هذا مددي هرور من أنا العلن والله الدجال كان الله بحمرك اللي يريد يسودي له مركي فشل في ناي يعني إنك يجون سكابة ولا سراكيش هذا دعوه سراكيش أرجع فرنت هذا كان دجال كشيء إلى شوكتي بقول يشن يتبان سركال بهاي ودرجوا يمكن مركا وحاول كورنيل إلا حيدقله صدح من مويانه انت كذا انقلابك كجرا
waxaan markii dambe reer laga dhigayo reer baawaday oo kala tahay oo kan ma ahayn wallaahi ma ahayn kulligood waa ku jireen adigu reer waqooyi baa tahay saraakiil badan reer waqooyi ku jirtay ma garanaysaa markii dambana annana ma sheegin kuwii la qabtay oo maaragtay la layn jirayna ma sheegin oo annaguna waa iska bixi doonaa kuwii kalena dee waxay yidhahan kolley waa laydin dilayahay badbaadiya saaxiibadiin wixii aan la ogeyn oo aan la qaban marka saasuu ku fashilay Angola sidaasuu ku fashilay dabadeedna sida taariikhda aan ku hayno adiga iyo rag saraakiil aad ka mid ahayd dhinaca Kenya ayaa u gudubteen oo waddanka waa ka baxdeen maalintii hore ee Angola ku fashilay ma bixin maalintii labaad doorkii maanta shamay taliyayaashii guutooyinka la tashaday waxay yidhaaheen meeshaan waa tuuley maxaa yeelay ciidankeenu waa ka fog yahay Muqdisho kan kalena waa ka fog yahay gobolada dhexe ka imanaya haddeer haddaan duulaan meelaheenaas ka qaadno oo aan wax meeshii inoo ka horreeyaan jirin saraakiishaan Angola marka sayniska waxay ahayd qorsho markii wax la bilaabo inay qaarna xaggayga u soo yaacaan wixii Angola ku jiray loo baqayay waxana xagga gobolada dhexe ciidamada ka soo socda ay ka hortagaan oo markaa nala soo gadoomaan nala yimaadaan hamar ومركا أكشن كواحد كجلان ما يهيني ده ماشي بكبلابين ماشي بي مارتي كوفشلين ماشي با لوقب قبتي إنقذوا قار لقبتي طبعا عشان كدي وينتي بحثين وبادية لوجيين ويوم بادية شو لقبتي قرتي إن إغلاب كاس ليسكود إساس وكوفشل مي إن أديك يسرى كيش كلا سيدا شيء كينيا مدة شوكتين كينيا نوع كل جذبتين أو حاو جذبتين إثيوبيا دتيل أنا كوشة جميع دوني سامسين أنا كودر مرة. تاريخ ذكور الجيون بينه. مركا واحد سلاي هنا هو مهم. مركي مالين كلا بعد المرئي. وعيدا كجينا واستكالا بليه. وحالات الشرعية ترياش الجوتوينك. مركا شوي. وهم كويري هو أركتاني. الحمد لله. وحيرا هذا بركة الله وهذا إنه أكشن مجري كروه عنقهم سوى أنا اللوجي هي وح إنه كل شيء فيه كانوا سكبحنا وهذا إثيوبيا هذا إنكسر دجال الله وكمان نوعا كره وويجي بنك السكالي فدي أنا دعو أنا بنك صناعي فدينا إله بقى ويسموه قلنا ما له الله يسحب علينا وحيرا ياخذون النقطة كينيا وحنا قتل صاني إن قالنا وبوليتيكال أسهيل مويدي سنو بس شيء تي والله يقول راعي سراكيل جروب وطول يتبعه الراعي باور ما كوباني وعيد إن كانوا ملاحظ وعلينا مركان إحمريني دوروا إلى بولحة وعيد إنك الدفاع كذي وعيد إنك يجي سلام باب النور قبنا جبنا وعندنا قوانين سامي شفتوا. ليدل من أوجي ده طبعا اللي كون هيننا. وحرص عنا اللي جرمي. من دران وكلا يجور قلبه. من درا يبورها حاونا. ويسمو غدا. ويسكمل. الربور بكو اللي شري دحضه أنت كله. ويسوون الجروب كلو أمغدا. هاتنا مقالين فيك وينادين ويسقسي دويرت. كيان كي با وحين جيين حبسيكا بوليسكا ومديرا السيلس نما يجرين وحين يدشين غريو وحنفيلا إني كبقين إن أنتنا لكدوي ما هذا حب أنا لك قاطع أما الله بصلوا إن فاكت أنا مركان بحري ومديرا قال لي وهين كينا لواي واللي سكود دي أنا أصلا وركو هيو إن عيدنا ولا كسر توديره عيدنا ولا كسر توديره هذا هو حي open war between كينيا وصوماليا صوماليا نقول له هذا ما لما يسمعين صبح دي دنباب مع القابات بابور سيدي وحنا لابو قاضي يهوب كيجي ديورده وحا أنا سيم الرئي مقالة اللي هذا وشير أيربور كذا وحنا لابد شيء جارس أو عاصمة قبل كوقوي بري
وسومالي دقنتها دوري تمن عشان لكوها انت وانا الوريسنه الا ولا اسكا كاوبنيا waxa timiyo waxa tahay waxa magaciisiyo Soomaaliya oo dhan laga shaqeeyay aakhirkii ay naaqbaleen waxay raaheen soo qaada Nairobi keena Nairobi baan waraysiga intii dheeraad ku sii weydiinayna saasa Nairobi ku tagmay hadii waraysiga nala ka dhamaadana aniga press conference sameeyay ma ka hadlay waxaan sheegay ayaan daro inay tahay anqalaabkii inuu naga fashalay waxaan sheegay in ay dhacday waxyaabo runtii aan lagu talagelin haddii anqalaabkii fashalana waa soo baxsanay magangelyo siyaasadeed baan idinku niman ku gartay inkastoo dagaal aanu dhex marin wadamada Kenya iyo Soomaaliya haddana khilaafkii waxa jiray la midka ah Ethiopia oo kale dhinaca dhulka Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeyay marka la Kenya diyaar uma yahay inay martigeliso jabhadii wax ka sameeyaan jabhad ma golayna waa diideen Nairobi ana la geeyay Nairobi bana ku wareystay wareysiga markaa ka press conference ma qabtay yaani waxay noqotay waxaan yeelayna baan ka hadlay anigu waa ishaaray sida inaan ku haray haddii aan qalaabkii fashalay oo mid hore fashalay oo saraakiil badan la laayay anagu marka dagaalkii waa bedelaynaa noociisiyo aan qalaab dambe gelimayne dagaal hubeysan oo shacab baan kaga hortegaynaa kacaanka siyaad bare baan afkayga ka eri haddii idaacadii waagaa la tago cajaladii waa la helaya markaanu maalama joognayna waxaa noo yimid qolo soo daf loo oran jiray oo awal dibadda jirtay oo jabad sheegan jiray laakiin aan ciidan lahayn operations gelin waxna qaban oo saldhigooda halku ah markaa nimada iska maartay haabay ahaayeen oo Ethiopia markii aan weeraray baa laga saaray meel saldhigo ay meel kuwa mid jireen qaarna Arabtu la jiray qaar meel kale u jiray niman waxay ahaayeen adigu ban buwaatay raggaas waxaan ka garanayaa ninkii madaxda waxaan garanayaa xogayihiigu ismaanuur cali qof ba ka mid ah qaar yar waqooyiga ku jiray haddeer nin maaragtay isagoo Yuusuf la yiraahdo dirir baa ku jiray ma garanaysaa Yuusuf dirirna inuu isku reertiin wada ogtahay lata iyaguna waa noo yimaadeen oo waxay nala qaateen fikraddii ay dagaalka in lagu wado jabhad Kenya lala hadlay Kenya waa nadiid laakiin nabadiina waa nasiisay waa nadiid Djibouti markii ay dhaartay oo dee ciidan ma lahayn magaciisana ma lahayn iyada afkana jabin lahaa markaasay nimankii awal Ethiopia joogi jiray waxay yiraahdeen Ethiopiaanu la hadlaynaaye waqti bay inta u direen bay la soo hadleen waxa la yiri they are welcome warno xaqiiqiyada meesha waa ka soo dagaalamay inaan ciidan wax niyeeray liyeeli ma haymaadeen waa tagnay annagu wafti ah marka hore buwaatay aniga waxa raacay in la oran jiray aan saaxiib ahayn runtii helanahay Ahmed Elidir oo saraakiis iyo ka kamid ah hadii salaam markaan tagnay waxaan tagnay 12 July 78 guriga la dejiyay qoladii awal naga sii horeysay baa meel naga kula dejiyay waxaan wada jabhad inaan dhisano aan weydiisanayno iyaguna nasiiyaan baysaskii iyo wixii iyo oo ciidankii Soomaaliyeed intaanu ka keensano Soomaaliya gudaheeda aanu jabhad inta ka dhigno markaa ku dagaal galno oo wax ku afrimno Ethiopia mingista jooga oo isna kacaan sheeganayo waliba hanti wadaag sheeganayo xaqi kalena Maxamed Siyaad Barre kacaankiisa baa jooga wuxuu military mingista noo yahay oo tagnay wuxuu nayay sida waxrata waa sheegna waxaan rabnaa baysas inaad naga siisaan
xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliya u dhaxaysa oo dhinaciina ah si aan marka hore ciidan iyo magciisi iyo waxay isu abaabulo oo isu hubayno operationska markaan bilownada Soomaaliya gudaheedan ku dagaalamay mucaaradkii badnaayo anagu aan ogeynoo Soomaaliyeedna wuu naga haray reer waqooyina waa naga haray Cabdisalaam adiga hadir inaan ku sheego wax dhammaan ma arkay beelihii kale oo maaragtay koonfur joogana waa naga hareen inta iyadaanay rag isku wada beela baana laakiin siyaasiyiinta reer waliba ku jira magaranaysaa mahama aan weli ilaawin noo soo jeedi waa mingiste ha mingistana markaa ka hor anigu maarag wuxuuna yiri anigu haddaan Itoobiyaan nahay waxaan ku maahmaanaa shabeel dabada lama qabto haddaa qabatana lama sii daayo suuqa ku cunay marka hadda anagu waxaan leenahay maahmaadaas iyo dhaqankaas ogaada buni waa idinka aqbalay taladiini waayo haddaad siyaad marre la dagaalaysaan yani waxba kama qabo saasaan horta ku helay Ethiopia ina saldhig ka dhigataan markaasaanu ku noqonay Nairobi markaasaanu abaabul galay markaasaanu siyaasiyiintii keenay markaasaanu dhalinyaro badan oo meel walba joogtay u yeernay oo keenay labadii urur ugu horreeyay oo aanu jabhad ka asaasnay bayska magaalada la yiraahdo waxa la yiraahdaa erer gooto oo diridhabe 70 kilomitir ka galbeedaysa oo ciise ay degan yihiin halkaasna bays ka dhigan oo tababarku horeeyo ka galay kadibna de waatay jabhadii markii dambe waxay u xubsiibatay sida la socono ururkii ama jabhadii SSDF ila qaar kale noo yimid maanu markaas raacnay SSDF la noqdo markii hore Somali Salvation Front yahay markii dambe qola maaragtay bidix ahaan jiday oo adan fadhigoodu ay nagu soo biireen bayiraahdeen magaca waxa laga bedel waayo waxaan wari maxaa jiraan magacu waxna yeeli maayo runtu waxay tahay waxaan aaminsan gartay markii dambe jabhada kale ayaa iyaguna soo biiray oo SNM ay kamid ahayd oo Ethiopia ku yimi adoo soo koobaya dhibaatadii Soomaaliya ka dhacday sida aad la socoto mudane waxa dad fara badan ay wax ka saaraan in jabhadihii ka soo horjeeday dawladda Soomaaliya ay u suurta gali weeday inay midoobaan adiguna dabcan waxaad muddada madax ka ahayd jabhadii SSDF maxay taas ku dhacday annagu raali waanu ka ahayn fikradaad iminka soo jeedinaysaan qabnay hadaan SSDF na madax waa bayska iyo qolo walba headquarterkeeduna diridhabe waa marka horta group baa yimid magaciisii congress bay sameeyeen way isbedeleen markii dambe Siilaan yaa yimid Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaan oo iminka siyaasiya baa madax ka noqday SNM baanu fikrad u jeedin personally ana u jeedin raggan u jeedina Siilaan uu ku jira haddana uu jooga waxaan ku niri waana diridhabe waxaan ku niri si aynu hadiiba ugu guulaysano waqtiga u soo gaabino halganka riitaanka dawladda la diraysana aan soo dedejino aan isku daro jabhadaha wixii kale mucaarado yimaadana hayla la midoobeen ila markaa wixii waa ka baxayaan qabyaalad iyo gobol iyo magaciisa way ka baxayaan oo xoogaabaya dagaalkii oo shacabkiina uu si ayidi ninka hadalka yiri aniga laakiin waxaan ku soo tashanay waxaan ahayn laba group oo leadershipkii labada jabhadood oo miis wareegsan is horfadhiya Siilaan ii jawaabay wuxuu ugu yiri ama nugu yiri adeer arrin 60kii khaldantay ilaa aan mustaxano
يلا مدومين وفهمين وجهه وايو كوبي اللي حدن كي انقلابك حسن كيد سراكيشي كونفوريات كايدو شوقتي وقوي بنقول goosashadaas xasankay siyaasiyiin ba ka dambeysay siyaasiyiintu waxay rabeen markii ay inamadu qabsadaan gobolada waqooyiga inta dhowrka iyaga nin ee reer koonfureedka ah naqbaqabtaan goosasho inay ku dhawaaqaan bay rabeen inay tigun daba socdaan waan garteen waxay tilmaamaan sidaad la socoto in فرق جديد حقيقي وايت المامان لكن واحد المامان وكلا إن قصشوا أي هيدا المتكلم على تعرفين تبرعي مرك علم هذه العلامة صاري والله أنا وحبك كتير من جثة بكل شيء يعني أنت سيراني مدحنا ومن جثة مرك إذا ما هو قدر الدنيا كم تاي إلا سومالي غير وده شوكتو إسقاط يليسو مرك هو كلا هذا شيء قرد ما مرك ينقطه كي وحلوله شيء وشيء personally أنا أقول leadership كي يقدم بقولي أنا يغار غير وقوي leadership كي يقول شيء مقرن يسا قوس الشدة قلوي بقولتين ومن كسل كل شيء هذا يكون عربي يعني وحكر كوش يكان وحشي لما أبصر إله ضبي المركع كيابي ويديدين macnuhu wuxuu ahaa goosashadii koob iyo 60kii inqalaabkii la isku dayay ee fashalay in inta guul gaaro la meel maray haatanba yaa ku khasbay waa goosanay markii rejiimkii maxamed siyaad barre dhacay soo intay congress isugu yimaadeen oo shireen may caddayn kuga dhawaaqeen gobolada waqooyiga وقوصنا. لا تلمانتي وحيابها هجاميه واجس إثيوبيا من قصة حيل مريا أسكورت معدن أيه كم ذا حيد أرنتن أتشكتين وبيرجلني إيقاس شذا وغوي ما حاسكو قبض هذا كلام من قصة وحنسوا أولناي شن إيو أفريو سيدتكي أنه 5 سنة 6 سنة دقالمين قلت أسنب waxay timi 4 سنة noo dagaal ku jiray Soomaad garan awal kaliya nooy markay yimaadeenna wala hadalay waa soo gal weeday inaan midowno markii la gaaray 4 وسيركي هراء وأرمها دبدة وإثيوبيا ومركز شوي قوش ولد بالورنجي بعد عضو هذا كهذا وهو سأبنا وير بان بلا يقدروا وأنو أن تشوفنا خبصنا وهذا ما يسمى خبصنا أو قبل هذا دحاء أو قبل هذا دحاء وهو ير بان بلا يقدروا وبارت أم بارسل في الصومالي و قريب أن كجو يكرن دلوينها يتوبي وصلوا ولا خلي كران الله نشوف الله هذه حدودي العلامة أنت اللي هو شيء العلامة يروح خلمري مركز إذا جرجر سنتهي أبوه دي شيء أولنا وحنا كإل قبني كالجوينت لكن أنا ابنه مو أبي وحاشري مركا executive committee أوروكيان وحانو هن كوبي طبعاً ورقة بماشي ورنكي وحاسو كوهالي إنه مرتقلي نويه إنه مخائمين بينو أهين دلخو دخائن كوه مثل ريشين بلا دقالين مثل ريشين بلا دقالين أيوه نقو دانين بانا دي أساسا اللي يري محاينو حلو يلا محاينو يلا وحالا يري horta waynu hadlaynaa ninkan ida xadii buu joogay qoori ida xadii markaa naga dhaxaysay anaga iyo SNM waxa la yiraahdaa ka hadlaynaa ida hadayna siiyeen qudheedan ka hadlaynaa rigi walna walbo kay foorinkan
قابل سنة كي ورفافين تنو قابل سنة تهبل وادي كاونتر بارتي قاعو أهانك هذا حتى هذا بلن بليه يقولوا بصومالي بقول يلا إن كان عليه هذا نجا شوبنا لقوا نقول قلتن كانوا نقولوا بقضي مرة هو ذا بقضيان ما هو هنكويري هذا وحلوة بهاي أما إن أمد الصوماليات هرتي هذا خائمين إنه نقول إنه إيش كان يستنى يوكو تلاقنا أم بكرة مسكرة أرنتي إذن كأيري إذا قدر أي نصيحة كهذا أنا وين لقات هذا دين إذن كنا هذا شان أنا خليا وحنورنا يا بلان بلي يا جلدوب ودموي كم من الصومالي صومالي كتير سنة إم كتير سنة ولقوا أحمد دورك صومالي ملا كتير سنة هذا أنا نشوفنا لقوا من أقول قرتني كرو مارك الله marka waan ka hadlaa qoosashay waxaan Ethiopia oo u dagaalamaysa midnimada Ethiopia oo Eritrea inay go'da diidaysa Soomaaliya in la kala jaro kala aqbal karo attack bay warkeeniyo laakiin waa mabda ومبدئ اللي قربي إنه وطني إنه يرهده. وتمركي وركا إذا عدت كشيء. كاس يجوا قبه. بدحدي شباب اللي دحدي وحكى كعي رج مرتين. إسكت عليه وأنا ما رح نقضى عنه ترتيب. رندي وودين برب لهم بيشجعين بينه ومارتين الرومانستي. لكن واحد قنت تاي ولا لا يوحري. وهو يبلن بلي يقلد. هل كانت كحول للمركب؟ يقول شر. waxaan ku xirnaa xabsi ciidamada militarigu leeyihiin aeroboortka magaalada dhexdeeda ku yaal ma taqaan waxa la yiraahdaa all airport kan international ka ah oo hadda ay meel kale laga dhisay ma kaas boole airport baa la yiraahdaa halkaas afkeeda soo magaalada xiga xabsi ku yaal baan ku jiray muddo inta lag baad ku jirtay kaligeena ma ahayn nin baa la igu daray oo ila xidhnaa laakiin xabsiga lagu dilay ayaan dar من سياسية ومتعلمة ووزير أهان شري وغرفافين تهين شري وعبد الله الأورن شري فاش من خاطر تربى القدرة حبسيان القدرة لكن أنا وننا الله هذينا وقول كيان إسكتشوا يو لحسن هذا قولنا الله واطي سودين تادي دمبه waxay ku soo beegantay burburkiis dawladii Soomaaliya iyo dhicitaankii dawladii Mengistu isku waqti ahaa xukuumaddan cusub ee markaa la wareegtay talada Itoobiya ku soo deysay Soomaaliya soo deyn laakiin ma bay ogeyn beenan meesha ku xidhnay baan malaynay markii magaaladii habeennimadii ay ciidan badan soo galiyeen aroortii strategic maarta positionski magaalada warfaafintii iyo magaciisii agaasi bay qabsadeen wadooyinkii oo dhan bay kala jarjareen dagaal baa ciidamadii wixii joogay isku dayeen inay shabayaan bay garteen ciidankii xabsiga hayay oo military police ah markuu arkay meesha in lagu kala yaacayo bay iska yaaceen marka gruubkii u dambeeyay baxsanayay baa aniga galabtii hore dadkii kale oo dhan la sii daayay aniga habeenkii xabsiga ku jiro habeenkaas oo moortar baa lagu garaacay laakiin dadam taadi gali dhiman weysay oo inta iska labistay iska fadhiya subaxdii baa kuwii ugu dambeeyay cararayay baa albaabkii soo furay handaraab baa ku jiray albaabka kowbe kulmis noo weego markuulmis baa tahay kulmis yani idaacadda magaceedii weeye ma garanaysaa ha abanay waxay igu yiraahdeen alaabtaadii intaas oran kaliya oo maalintaan soo galay watay baan haystaa baan ku iyo intaan gashana waa qaateen sheebka waxay ka heleen konton bir oo nin jaran ahaayo galabtii hore la sii daayay oo daaqada si qarsoodi iga dhiibay oo war haddii lagu soo daayo taasi ku soo raac waxaan ila qaato inta aan qabo inta ii daysaan
aan iska bixi daay waa arkaan in meesha ka cararaya haddii haddana la igu xiro oo dawladdii dambe igu soo gaadho meesha qabsatay dabcan way sii dayn lahayeen dabcan soo daynta laga soo daayay xabsiga ku yaala magaalada Addis Ababa kadib markii ay dhacday dawladdii hore ee Ethiopia ee hogaamiye uu ka ahaa Mengistu Haile Mariam waxa ay ku soo beegantay burburkii iyo dhicitaankii dawladdii hore ee Soomaaliya ee uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre wararka ku saabsan wixii intaasi ka dambeeyayna waxaan u malaynayaa dadku waa ka wada dharagsan yahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed adaa mudan mahadsan